waa qaybtii 19aad qisadii la magac baxday caashaqii hooyan waayey hormuud baa u soo dhacay. hooyo nadiifo aad u caraysan baa isugu yeertay wiilasheedii. waa kuma qofka kartida intaas la eg yeeshay oo shiirkiisu u soo uray? waryaadama warkayga ayaad ka soo horjeesan kartaan ayay dhahday, waxayna ku amartay inay faraha kala baxaan nolosha u bilaabatay Axmed. 2 asbuuc kadib, hooyo nadiifo waxay booqatay dukaankii uu Axmed ka shaqaynayay, iyadoo rabta inay soo indha-indhayso siduu shaqada ula qabsaday. waxaa markaas dukaanka joogay Axmed iyo maamo Duniyo. waxay hooyo nadiifo u riyaaqday sida uu wiilka ay habaryarta u tahay ugu adeegayo macaamiisha, iyo sida ay durbe isku fahmeen maamo Duniyo. in yar kadib Axmed wuxuu u baxay inuu soo ogo salaada duhur, waxaana isugu soo haray goobta hooyo nadiifo iyo maamo Duniyo. sida caadada u ahayd, waxay iska wareysteen dhaqdhaqaaqyada ka socda suuqa, waxayna maamo Duniyo u sheegtay in markii hore xaalkeedu uu bariga dhexe ahaa, balse muddadii uu la joogay Axmed inay si wacan u shaqeeyeen. waxayse intaas u raacisay, saaxiibay wiilka aad habaryarta u tahay, shaqadana taf buu ku yahay, ilmahayga way jeclaadeen, anigana aad buu ii soo jiitay ee armaan xididnaa. hooyo nadiifo inta afka gacanta saaratay ayay ku qosashay, waxayna si kaftana u dhahday, Duniyo saaxiibay, ileen haddaad baryahan shaqada heegan u ahayd, waxbaa kaa dhex guuxayay. kadib maamo Duniyo waxay ka codsatay saaxiibadeed inay rabitaankeeda u fududayso, iyadoo u ballanqaadday wax ay ku farxi doonto hadday arrintan hirgasho. walow uusan arrinkan sahlanayn, hooyo nadiifo waxaa qaaday hunguri, waxayna si aan ka fiirsi lahayn u oggolaatay codsiga maamo Duniyo. in yar kadib waxaa soo laabtay Axmed. wuxuu doonayay inuu shaqadiisa sii wato, balse si lama filaan ah habaryartii ayaa ku dhahday, inakeen wiilkaygiyow, anigaa fasax kuu qaaday, arrin muhiim ah baan ka wada hadlaynaa. in yar kadibna waxay gaareen maqaayadda Togdheer oo ku taalla agagaarka masjidka Al-Hidaaya. hooyo nadiifo waxay aad uga warqabtay inuusan Axmed ka hor iman doonin talada ay soo jeediso. waxay ugu horrayn u taabatay xusuuso hore oo hooyadii iyo iyada soo wada mareen carruurnimadoodii, iyo noloshii adkeed ay ku soo barbaareen, iyadoo ka damacsan inay qalbigiisa ku hanato. markay aragtay in dareemaha Axmed ay soo dabceen, ayay u soo bandhigtay inay la jeclaatay inuu guursado milkiilaha dukaanka uu ka shaqeeyo. cid kale ma ahan, waa maamo Duniyo. Axmed akhbaartaas waxay uga dhigneed sidii gugaca roobka oo kale, hadalkii ayaana ku dhegay. wuxuu noqday sidii qof meel geeri go'an ah jooga, sababtoo ah wuxuu ka warhayaa culayska ay leedahay arrintan. dhanka kale ma doonayo inuu habaryartii niyadda ka jebiyo. daqiiqado badan oo ay wada hadlayeen, waxay maamo nadiifo ku tashkiilisay Axmed in guurka laga helo degganaasho, naxariis iyo wanaag fara badan. waxay sidoo kale carabka ku dhufatay in da'du wax saamayn ah aysan yeelan doonin. taladaan la ruugin waa lagu rafaadaa. Axmed isagoo qadarinaya habaryartii ayuu ka aqbalay inuu guursado qof isaga ka da'weyn. maalmo kadib, hooyo nadiifo oo qabanqaabinaysa guurka Axmed iyo maamo Duniyo ayaa mar kale wiilasheeda ka maqashay iyagoo hadal haya jacaylka Hani iyo Axmed. qolka fadhiga oo ay wiilasha fadhiyeen ayay ugu gashay, iyadoo xanaaq cirka maraysa ayay dhahday, waryaada arrintii aan idinkaga digay miyaad weli waddaan? xasan oo aan weligiis ku afcelin hooyadii ayaa markaan dareemay inaan la joogin xilli uu ka aamuso arrinta Axmed iyo Hani. hooyo, labadan qofood way isku baahan yihiin, dad isjecelna mar walba kalama maarmaan. waxay ahayd inaan isku keenno,
waayo liibaan ayaa sabab u ahaa kala tagoodii ee ma ahayn inaan kala sii fogayno ayuu dhahay. hooyo nadiifo oo jawaan lacag ah loo ballanqaaday ayaa marmarsiyo ka dhigatay in axmed mustaqbalkiisa ay u wacan tahay inuu guursado maamo duniyo. anigaa og meesha wiilkaas u wacan ee danihiinna raacda ayay ugu jawaabtay. wadahadal xasaasi ah kadib waxay dhallinyaradii ku qanciyeen hooyadood in loo dhimriyo hani oo dhabar adeeg badan muujisay, iyagoo hordhigay wakhtiga adkaa ay ku sugnayd markuu axmed isbitaalka jiifay. maamada markay garwaaqsatay xaqiiqda waxay wiilkeeda salmaan ku amartay inuu axmed u tago oo uu runta u soo sheego, waxayna dhahday, wiilashaydiiyow dembigeenna allaha dhaafo, waxaan ka baqayaa labadan qofood ishooda inay nagu dhacdo haddaan sidaan ku daawano. waxayna ballanqaaddo hooyo nadiifo inay iyada mas-uuliyad ka saaran tahay inay bixiso qarashka ku bixi doona arooska axmed iyo hani, iyo in xafladda arooskooda ay ka dhici doonto Grand Royal Hotel oo ku yaala waddada 12 Street ee xaafadda Islii. qisadan la magac baxday caashiqii hooyan waaye hormuud baa u soo dhacay oo ah mid dhab ah, waxaa xuquuqdeeda leh, faafin kara, mas-uuliyaddeedana qaadi kara axmed cabdikariim waaye arag. beejkan ku taxnaa oo laag saar, qisadan oo sii socotana ka bogasho wacan. salmaan isla habeennimo ayuu baxay, xoogaa kadibna wuxuu tegey ushriika gaagaab oo ah halka uu axmed deggan yahay, balse isagu ma garanayo guriga uu ka deggan yahay. taleefankiisa ayuu ka wacay. xilligaas axmed wuxuu layliga iskuulka kala shaqaynayay carruurta maamo duniyo oo ah qofka isaga u doonan. axmed oo ah wiil shaqadiisa daacad u ah ayaa taleefankiisa codka ka xiray, isagoo aan warba u hayn cidda isaga soo wacaysa. salmaanna wuxuu ku qasbanaaday inuu daqiiqado badan taagnaado bannaanka. markii uu damcay inuu u laabto guriga isagoo daalan waxaa soo dhawaaqay taleefankiisa. markuu eegayna waaba axmed. si degdega ayuu uga qabtay. salmaanow iga raali noqo, ma aanan u jeedin wicitaankaaga ayuu dhahay axmed. nin yahow dhib ma lahane ganjeelka xaafadda laga soo galo ayaan taaganahay ee dhaqsoo kaala ii imow ayuu salmaan dhahay. xoogaa kadib ayuu axmed u yimid salmaan oo bannaanka ku jectaday. salaan iyo isxaal waraysi kabacdi salmaan baa hadalka qaatay. nin yahow arrin hani ku saabsan ayaan kuu hayaa ayuu dhahay. axmed markii ugu horraysay hadalkaas ma jeclaysan. salmaanow adigoo ka warqaba noloshayda iyo wixii aan soo maray miyaad weli hani iga daba waddaa ayuu ku warceliyey. kadib salmaan wuxuu daaha ka qaaday madmadowgii jiray, isagoo sidii subax ugu dul aqriyay axmed dhibaatadii qabsatay hani ee ku qasabtay inay jaceylkeeda xidhiidhin weydo, iyo kala shakigii laga dhex abuuray, sida hani weli ugu taagan tahay axdiga ay isaga ka qaaday, iyo baadigoobka ay ugu jirta jaceylkeeda. axmed intaasoo idil markay dhagihiisa ku soo dhaceen, ilin meel adag ka soo go'da ayaa ka soo burqatay. dhabannadiisa oo idil waxaa qooyey ilmada sidii daadka u qulqulaysay. isagoo sidii carruurtii xoog u ilmaynaya waxaa niyaddiisa ka soo maaxday, caynkaagan dunidaay sidaad ii casuuntay la cajabiba waayo, sidii cadow shisheeyaad cunaha iiga dhegtay, cawaaqibkaad imarisaa calooliyow ibadaye, caam ahaan haweenka middii aan ka calmaday haddaan calaf ku waayo, cuqubaa isaarane ciid ha laygu aaso oo caashaqba waa kii cilmi duugta geeye. intaa kadib axmed iyo salmaan waxay go'aansadeen inaysan wakhti kale sii lumin oo ay guriga hani aadaan. faadumo dhankeeda waxay wacday hani aabbaheed, runta ayayna indhaha ka saartay, iyadoo uga sheekaysay hani wixii iska beddelay muddadii ay Kenya joogtay. aabbe xuseen wuxuu hadalka faadumo ka fahmay in gabadhiisa dayacaad aad u weyn ku sugan tahay, waxayna labadooda isku afgarteen inay la yimaadaan qorshe hani loogu dirayo Soomaaliya.
la soco qaybta u dambaysa ama gunta iyo gunaanadka sheekadan. hadduu jiro saaxiib qaas oo aad jeceshahay inuu ka bogto sheekadan, halkan uga wac oo mention dheh. la soco had iyo jeer sheekooyinka iyo muuqaalada wanaagsan uu soo bandhigayo. like na saar page-ka Axmed Cabdikariim waaye arag, siina share gareey.